رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. حجابku marka la eego sharcigeena wuxuu leeyahay shuruudahaas waa 8 ragga iyo dumarku way wadaagaan 6 kamid ah labada dumarka la dheeraada labada dumarku la dheeraadii waxa weeye gabadhu ama ruuxa dumarkii xijaabka gashanaysa waa inaanu ziina lahayn dhalaal walaa yubdiina ziinatahunna buu lahayn dhalaal maradooda quruxdeeda ayay muujin quruxda waxa kamid ah maradii ka mara bilecle oo ragga indhahooda soo jiidanaysa waa la diiday midka labaad ee la dheerin ragga waxa weeye bukhuur iyo udgoon waa inaanay lahayn maradu rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay ruuxa dumarka ah ee bukhuur iyo udgoon soo marsata ayay masaajidka iyaga cishaayiga noogu imanin buu mar kalena waxa buu waa bazaaniyada waa gabadh sinaysata buu ereygaas u cabiray nabigu alayhi salaatu wasalaam waa dumarka xun buu qofka hadii cadar la baxdo waa hadal adag weey labada dumarka la gaara ragga dharkooda shardigaas waxba uma xidhna shuruudaha kale wadaagaan waxa kamid ah marada la gashanaya waa inay tahay mara adag oo aan ahayn wax jirku ka muuqanaya taa raggana looma ogola inuu cawradiisa ku asturo dumarkana looma ogola mara shafaaf ah oo jirkii laga akhriyayo sidoo kale mara ku dhaganna waa inaanay ahayn oo dhalinyaradu rag iyo dumarba waxay hadda qaataan oo moodadii noqotay mara xubnihii jirkaba muujinaysa raggana waa ka xaraam dumarkana waa ka xaraam cawradii waa in la qariyaa oo ragguna cawru leeyahay dumarkuna cawray leeyihiin qolo waliba inay cawradooda si dhammaystiran u qariyaan weeye dhalinyarada waxaynu aragnaa surwaalku inuu ka dhacayo oo xaggii dambe dabada ay muuqanayso dumarkiina waarigaa sheegaya waaxaha qaarkood ay bannaan yihiin saddexdaa shardiba waxaa laga fahmayaa xadiidka uu nabigu yidhi aakhiru zamaanka waxaa iman doona nisaa'un kaasiyaatun caariyaat dumar waxna xidhan qaawana marka qaawanaantu saddexdaaba way noqon kartaa maradii oo la isku dhajiyo mid khafiif oo la qaato ama cawradii qaar bannaan yihiin waxay ka siman yihiin dharka uu dumarku gashanaya waa inaanu ahayn kii ragga ka raggu gashanayaana waa inaanu ahayn kii dumarka waa laba jinsi oo kala nooca dhar bay kala leeyihiin kala gaara marka qolo waliba inay dharkooda xidhataa hadduu ninku dharkii dumarka gashado ama ruuxa dumarkii dharkii ragga ay gashato nacdal baa ku dhacdo nabiga nacdalay calayhi salaatu wasalaam taana waa la iska ilaalinayaa way dhici kartaa waxyaabaha qaarkood oo la wadaago la yaab lahayn u gaarka ah dumarka kaafiraadka ah ee gaalada ah taasina nabiga diiday calayhi salaatu wasalaam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolo isu egeysiiya iyagu ka mid yahay buu waxay ka siman yihiin thawbu shuhra mara markaa caan ah oo ummadda kaa dhex saaraysa raggana looma ogola dumarkana looma ogola maradaa qofka ragga ka dhex dadka ka dhex saaraysa shakhsiga markuu xidho ee indhahoo dhamise ay u wada eegayaan qofka xidha maalinta qiyaamaha mara dulliya buu ilaahay u xidhaa buu thawba dilla mara dullaysa axaadiitan daliishanaynaa wada saxiix marka taa loo geliyana ilaahay wuu ku holciyaa markaasaa naar lagaga dhigaa raggana looma ogola dumarkana looma ogola marka 8 shardi in la ilaaliya waa lagama maarmaan marka 8 shardi waxa ku jira sida ilaahay baa aayadda uu ku sheegay yudina calayhinna min jalaabibihin dharkii ha ku sii daayaan jirkooda oo dhan jilbaabki jilbaabna waxa la yiraahdaa min alqarni ila alqadam marada asturaysa tin iyo cirib waa inay maradii wada qarisaa intaa wajiga iyo gacmaha ayaa laga soo reebayaa waqtiga gabadhu tukanayso madhabta badankoodu waxay ku dareen markay ajnabiga la joogto intaana way qarinaysaa wajiga iyo gacmaha 8 shardi marka laga yimaado oo laga maarmaan intii si u ansaxa in loo ilaaliyo dumarkuna taa ay ku baraarugaan si cibaadadii ay ansaxdo ajrigiina ay helaan taasi waa xijaabkii sharciga ah xijaabku wuxuu leeyahay diin ahaan faa'iidooyinka waxa ka bida alxijaabu daaca xijaabka ilaahay baa lagu adeecaa sida salaadan iyo soomka loogu adeecayo amara dhacay إلهي بأمره وحده يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين نبي محمد أوريها يهب لها يدمرك الله يقانك أشهادنا أنت بوحى أمرت إن حجابك قشدان وأمر
marka inay ooridu amarkaa qaadato ilaahay bay ku adeecaysa maaha wax carbeed maahana wax iska curfiya maaha wax qofku ikhtiyaaru leeyahay taana in la ogaadaa waa muhiim alxijaabu iimaan xijaabku qaybaha iimaanku ka mid yahay wax sahlan maaha waa labada baaqba waxaad arkaysa wanisaa ilmu'miniin oo aynu akhrinay fariinta gaadhsii baa la dadka shahaadanaya dumarkooda dumarka iimaan kale fariinta ku socota waxaa kaloo rabbi yihi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna dumarka mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa ishiina xaaraanta ka laaba wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha marka mu'minaad buu ilaahay sheegayaa arrintani waxa ay damqaysaa oo dareemaya qofka iimaanka leh kaasaana amarka ilaahay qaadanaya subxaana wa tacala idan xijaabkii waa iimaan sidoo kale xijaabku waxa weye dahaaratu lilqalb qalbiga ayuu daahir u yihi markuu ilaahay xijaab ka soo warramay rag iyo dumarkiiba uu la hadlay kadibna wuxuu yihi dalikum madharu liquluubikum wa quluubihin ragga haddaad tihiin iyo dumarka haddaad tihiin labadiinaba waxaa idiin fiican inay dumarku xijaabtaan oo cawradoo muuqataa qalbiga wasakhaysaa oo raggiibaa qalbigu ka wasakhoobaya dumarkiina qalbigu ka wasakhoobaya shaydaanka ka faaidaysanaya alxijaabu calaamatu lilcifa xijaabku calaamad wuxuu u yahay qofkani inuu yahay mid dhowrsoon sida qaalibkaa waa caynka ah saa daraaddeed baa ilahay uhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna dumarkii in la gartay inayin dad cafiifaadoo dhowrsoon sidaasaa u dhow oo aan markaa la dhibin oo qofka isqaawiyena ilaaq buu usoo banbaxo cid waliba way dhibaysaa qofka iska asturanina waa qof la nabadgelinayo alxijaabu xayaa xijaabku waa xishood waxay u taagantahay ruuxa dumarkii markay xijaabantay inay xishoodka calanka u sido hadday isqaawisana waa qof xishoodkii ka tega weeye shanta arrimood waa fawaaid diiniya oo ruuxa dumarka ahi iyo ragguba ka cawradiisa asturaya ay ka helayaan asturnaanta iyo cawradaas oo ay qarinteeda ilaahay ku adeecayaan subxaana wa tacaala intaasoo daliila iyaga oo ku dhaqmaya casrigan aynu joogno daraasaday sameeyeen nimanka gaalada ah ee dumarka qaawiyey iyaga laftigooda waxay ka markhaati kaceen inuu xijaabku faa'iidooyin leeyahay dhinacyo badan dhinaca u horeeyuu leeyahay waxa weeyaan bay idhaahdeen dumarka xijaabta iyo dumarkaan xijaaban farqi baa la helay daraasaday kustaf shar iyo khayrba way baadhaan iyagu si ay wax badan u ogaadaan marka waxay idhahdeen kansarka aadka u khatarta badan ee ku dhaca maqaarka wuxuu u badan yahay dumarka caariyaadka ah ee haafafka iyo garanka gashan oo wuxuu ka yimaadaa sida badan ashicata shams albasfanjiya fallaadhaha qoraxda ee marar fara badan ruuxa dumara ku dhacaya jidhkeeda ayuu ka yimaadaa waana arrin wadamada gaalada ku badan oo wadamada islaamka xijaaban aan lahayn way ka markhaati kaceentaa xikmaddana ilaahay baa ogaa subxaana wa tacaala xijaabku bay yidhaahdeen faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a ruuxa dumarka ah ee xijaabata waxaa la ogaaday bay yidhaahdeen inay ka ilaaq iyo dhibaato yar tahay wase iyagu yidhaahdeen daraaso 2015 ay ka sameeyeen new york ayaa ka markhaati kacaysay ku caddeeyeen way ka ilaaq iyo dhibaato yar tahay bay yidhaahdeen ta xijaaban inta aan xijaabnayna qaawan waxay sameeyeen ruux dumara oo dhalinyaro ah oo haaf iyo garankeedii iska gashan ayay yidhahdeen laamidaa dheer mar laamidii bay martay muddo saacada bay socotay 10 jeer baa la ilaaqay bay yidhaahdeen oo dadkii ka soo horbaxaya iyo dhalinyaradii mid hadal ku tuura mid dabada yaro qabta mid u sanqada mid u iljabiya 10 jeer bay arrintaasi ku dhacday isla gabadhii ayay isla saacaddii oo berrita ah u xijaabeen markaa waxay dhahaan waddadii bay martay cidiba lama hadalba cid la hadashayba may jirin taasina waxay ka markhaati kacaysaa sidaa ilaahay uhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna taasaa waxay u dhowi badan tahay in la garto qofkani qof dhowrsoon inuu yahay oo aan ilaaq diyaaro ahayn oo la nabadgeliyo idan markaa waxaa cabsida la idhaahdo ayuuba xijaabku ka dulqaadayaa bay idhahaan ruuxii dumarka ahaa kol haddii xaaladeedu ay caynkaa tahay waxaa saddexaadoo ay sheegeen xijaabku bay idhaahdeen ruuxa dumarka ah ee caariyadda ah ama aan xijaabnayn way ka kharash badan tahay bay idhaahdeen iyaga kharashka aada ugu weyn waxa la idhaahdee qofka dumarka ah ee xijaaban waayo waxay aada ugu howlan tahay
inay dhar khafiif oo qaaliya fil azyaa marka la eego ay soo gashato waxyaabo dhaldhalaaliya ay aada u marsato oo cosmeticska iyo meelaha la isku qurxiyo ay aada ugu badato marka dharka iyo qalabka iyo waxaan la isku udgoonanayo waxa la isku dhalaalinayo sanadkii qadarka xiranaysa aad buu uga badan yahay bay dhaaheen ruuxa dumarka ah ee xijaaban ee iyadu il ay soo jiidanaysa iyo rag ay soo jiidanaysa aanu jirin way ka kharash badan tahay bay dhaaheen arrinta afraad jirtaa waxay dhaaheen waana ka qalaq badan tahay qalaq waa maxay waa dareenka nafsiga ah way ka warwar badan tahay oo intaa waxay ku warwaraysaa tolo maanta waad isqurxisee inankii halkaas malaha saani kuma eegin malaha kaasi ku kaxaysan maayo malaha kaasi ku guursan maayo tolo maxaad isku qurxisaa warwarkaasina waanu aragno uu ku badan yahay bay dhaaheen baynamaa ama iyadoo tan iska habi tahayoo ilaan kuma hawlana inay rag soo jiidato ama ay arkay ay tidhaahdeen iska habiyo nafis ay tahay bay dhaaheen marka afartaa arrimoodba taa cabsida iyo taa cudurrada iyo taa kharashka iyo taa dareenka afartaa arrimoodba waxaanu aragnay bay dhaaheen ta xijaabani inay kaga wanaagsantahay laakiin wax cajiiba iyagoo wax badan sidaa faa'iidadiisa u arka haddana ma kari karaan oo waxay la mid tahay un hilibkaa doofaarka la cunayo iyo khamriga ay cabayaan ay dhibaatadiisa arkeen haddana aanay iska dayn karaynin yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa min sawaatihima sidaa ilaahay uri ibliisku waxa uu ka siibayaa ehelkiisa dharkiibuu ka siibayaa sidaa uu aadam iyo xaawaba uga siibay ilaa hadda uu wadaa marka waxaynu leenahay waxaasoo faa'iidahayna sagaalkaa faa'iidana way ku jiraan diin iyo maadiba diinna sidaasuu noqdayoo shuruudahaasuu leeyahay marka xaawaladeenna waxaanu leenahay wadanku ilaa hadda waa fiican yahay siduu beri ahaa waa ka soo wanaagsanyahay markaas shawaaricdeeda marta magaalooyinka wax madax qaawan iyo wax dhar khafiifa gashan wuu yar yahay laakiin intaa ka dhiman hooyooyinkeen iyo hablaheena allaha barakeeya intaa ha ku dadaalaan ilaahayna ha ugu dhowaadaan si ay cibaadadu ansaxdo wahada ma aquluhu